allaha u naxariistee waxaa abbaara 7 fiidnimo ee xalay meel 7 kiilomitir dhinaca waqooyi ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Awda ka xigta ku dhintay marxuum Cabdi Gabas Aw Rashid iyo Najax Maxamed Xaaji Xasan oo la socday gaari ku soo jeeday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. gaarigan ayaa sida warbaahinta u xaqiijiyay darawalkii u waday ay haleeshay rasaas aanay arkin cid ridaysa iyo meel ay ka timid midnaba. Cabdi Gabas Aw Rashid iyo Najax Maxamed Xaaji Xasan ayaa marka hore dhaawac lagu soo qaaday waxaana marxuum Cabdi Gabas Aw Rashid oo ku dhintay cusbitaalka guud ee magaalada Beledweyne halka marxuum Najax Maxamed Xaaji Xasan oo ay xaaladiisa caafimaad aad u cuslayd loo soo qaaday dhinaca magaalada Hargeysa. hase yeeshee waxay naftu kaga baxday intii lagu soo jiray jidka. darawalkii waday baabuurka ayaa warbaahinta uga waramay sidii ay wax u dhaceen. halkan aan ka baxnay goor fiidowgiya bakri waxaan ku sii tukanay halkaan dhexda shilku naga heli doono yar sukadeeda anagoo iska soconayno oo afar nin baan ahay afartayadii nin anagoo iska sheekaysanaya ayaan baa rasaastu nagu bilaabantay taa qofna hormaray iyo qof gacanta saanay iyo qof iskaaga tusay toona mu jiro ya kawle marka inankii aniga xaggayga xigaan ninkii gaariga watay baan garanaysaa daaqada dhinaca inankii iga xigay halkaas midig mise bidix daaqada bidix anu midig baa saarnaayo oo ka wada gaariga daaqada bidix inankii saarnaa halkaas ka dhacdo halkaa fadhida halkaas soo qabadka allaahumma salli ala maxamed daaqada aniga iga dambaysa ee darawalka ka dambaysa inankii fadhiyeyna xaggaas ka soo dhacdo wata halkaa fadhiisatay feeraha marka waa inanka dhintay daaqadan bidixda xagga hore ee darawalka ku beegana xagga hore garanaysa inankii fadhiyey iyo anigii gaariga waday waa badbaadno ilaahay waa na garamariyey rasaasta ya kawle markaa waxay ahayd xaggaas waxaan anagu aragnay indhahaygu afartayadan indhahaygaas ay qabteen nin qura xitaa maana indhahayguna qaban qof iskaaga tusay qof wadada loo istaago dableskii abdulmutalade amaarada maana arag rasaastu maan ku war xelay. dhinaca kale maamulka gobolka Awda oo ay warbaahinta madaxa bannaan u hoolatay in ay wax ka weydiiso dilkan ayaana u suurtagelin. geesta kale xukuumadda dhexe iyo taliska ciidamada booliiska Soomaaliland ayaan midkoodna wax war ah ka soo saarin falkan. hase yeeshee waxaa la dhowrayaa in ay saacadaha soo socda warbixino la xidhiidha sidii uu falkaasi u dhacay ay shacabka la wadaagaan. si kastaba haatee xukuumadda Soomaaliland ayaa in dhoweyd beegsanaysay gaadiidka sida jaadka kadib markii ay qaadatay go'aamo lagu joojinayo jaadka oo loo aaneynayo inuu qayb ka noqon karo cudurka COVID-19 waxaana la sheegay in ciidamada rasaasta la beegsaday gaadhigaasi ahayeen kuwa ku raajoogay baabuurta jaadka la joojiya soo qaada, balse baabuurkan ay raggu ku dhinteen ayaa xilligaasi ahaa mid aan sidin wax jaad ah. Soomaaliland waxaa in dhoweyd sii kordhaya baacsiga ay ciidamada booliiska Soomaaliland ku eryanayaan dadka soo gelinaya dalka jaadka qarsoodiga ah kaasoo sababay khasaare isugu jira mood iyo noolba.